iminka eedan waxay maamulaysaa guluubkan biidanna waxay maamulaysaa guluubka xariga elmana ku xirno wanka waxa ka laabanaya ritaankiisa oo uu tagay labada guluub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. magacayga Aamin Cabdilaahi Qaadir waxaan ku noolahay magaalada Jigjiga. waxaan ka bartaa macadka caalamiga ee kobcinta iyo xirfadda. waliba waxaan ka dhigtaa qaybta electric installation. waxaan bilaabay bishii April ayaan bilaabay. iminka waxaan ku jiraa muddo bil iyo badh. waxa ii dhiman muddo bil ayaa ii dhiman. saa daraadeed runtii xirfaddan awal leerka markaan bilaabayay wax badan kamaan aqoonin, laakiin maanta alxamdulilah wax badan ayaan ka aqaanaa. miseenkana arkaysaan aniga gacantayda ku sameeyey intaanan bilaabin xirfaddan electriga. awal waxba kamaan aqoonin, laakiin maanta waxay fududaatay markaan helay macallin runtii ii hagarbaxay. runtii macallinkayga waxa la yidhahdaa macallin Khadar, aad baan ugu mahadcelinayaa. sidoo kale halka waxaan uga mahadcelinayaa Mr. Abdiraxmaan oo asagana ah maareeyaha guud macadka. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa macallinkayga asagana ama managerka meesha Mr. Axmed. dhammaantood runtii waa dad aad u qiimo badan oo runtii aad nooga hagarbaxay. marka aan xirfaddan aan maanta aan qayb ka mid ah aan ka bartay, runtii iga caawiyey oo agab kastaan u baahnay markaa runtii na soo gaarsiiyey. saa daraadeed waxaad arkaysaan maanta dhiseenkana hortiina aad ku arkaysaan waa dhiseen anu gacanteyda aan ku sameeyey. halkan waxaa ku jira waa hal switch. halka switch wuxuu maamulayaa laba ambool buu maamulayaa. marka iminka tusaalehaan halkan switch wuxuu leeyahay A iyo B ayuu leeyahay. iminka eedan waxay maamulaysaa guluubkan, biidanna waxay maamulaysaa guluubka. sidoo kale halkan waxaa igu yaalla socket oo asaguna lagu talagalay qaybisadii. marka waa dhiseen aad u qurux badan. iminka haddaan ku celiyo eedu kaasay maamulaysaa, biiduna kan. eedu amboolkaasay maamulaysaa, biiduna kanay maamulaysaa. marka saa daraadeed runtii xirfaddan maanta anagu aan baranay waa xirfad aan hore uga jirin deegaanka, laakiin maanta waxaan aad ugu bogaadinayaa dhalinyarada waliba waqti fara badan haya oo hadday noqoto inay waqtigooga ay ku kharash gareeyaan inay iska baashaalaan. waxaan leenahay waxaan haynaa xirfaddaasoo maanta noloshiina wax badan ka bedelaysa, sababtoo ah maanta waxaa lagu jiraa qarnigii 21aad waqtiga ay ka faa'iideyso inta dhalinyarada tahay. xirfaddan hadda maanta aan gacanta ku hayno waxay horseedi kartaa mustaqbalkaada. waxaan ognahay dad iyo dibadba in maanta ka shaqeeyaan xirfado, waxaana jirta inay bedelayaan shahaadooyinkii la qaadan jiray xirfadaha. marka xafiis tagtid waxa lagu weydiinayo the more skill you know, ma ahan the more educated you are, ama markiska aad wadatid cid ku weydiinaysa maaha. marka waxaan leenahay saaxiibadana opportunity opportunity-ga ama fursadu waxay abaab soo garaacdo hal mar, laakiin laba jeer ma soo garaacdo. waxaan ku bogaadinaynaa dhammaan dhalinyarta deegaanka waa xirfad dhamaystiran oo waxa weeyaan muddo kooban ku baran kartid. runtii markaa electrical soo geliyey waxaan aaminsanaa inay dangerous tahay electrical installationka, laakiin markii ay naga caawiyeen maamulka oo inoo sharaxeen iyo habka wax loo baranayo intaba waxa waa well qualified. kusoo dhawaada deegaanka. haddii aan wax yar sharaxaad ka bixiyo wax meesha ku yaala, labadan xarig waa 220 voltage. xariga balaaska ah toos wuxuu imaanaya guryaha HSL. xariga L markaan ku xirno wanka waxaa ka laabanaya ritaankiisa oo uu tagay labada guluub. taana waxay suurtagelinaysaa inay labada guluubba uu maamulo daadamiyaha. sidoo kale xarig minus ah oo 220 voltage ka imaado asagoo daadamiyaha u imaanaya toos wuxuu tagayaa labada guluub. halkaasna waxaa ku dhamaystirmaya dadkii. haddii aan tijaabada sameyno hadda markaan daarno waa inay labada boolba inoo daarmaan. haddii daari waayaan waxaa jirta markaa cillad dhanka farsamada. dabcan intaan hadda waa tusaale kooban, casharo kasii badan baa jira qolal kala duwan lagu xirayo. intaa in ka badan waan ka baranay. aad baan ugu mahadcelinaynaa muddadii koobneed iyo xirfaddii aan ka baranay meeshaan. ha moogaan macadka tababarka iyo kobcinta xirfadaha ee Jigjiga waxa uu ku yaalaa xaafadda 6aad gadaasha Sahra Hotel. kalena xiriir lambarada shaashada ku xiran. Technology-ga badan ee beeraha adduunyadu
باهدا كدافي بيركينا قليو ورشاد حرفة هيو فسمدا كبرتا من كبرتا